kusoo dhawaada channelkeena Somali Technology Solution. Dad ku cusub tahay subscribe ka saar beelkana shido si aad u heshid casharadii ugu dambeeyay oo noqotid kuwa u hor daawada. Hala hilmaamin inaad like saartid barnaamijka ana wadaag walaalahaaga Soomaaliyeed si ay uga faa'iideystaan. Waa mahadsantihiin. Bismillah, assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعنا وناكسن كسر دوادا channel كينا Somali Technology Solution. إن شاء الله ما أنت وحنا كجا هذا الدورنا سدا وقف فضود الله برتو وحلا يقانو هاكين كا أم بإتكال هاكين أيام كجا الدورنا إن شاء الله دول رادو مركب كوبات قف كوه وباهي توليس كوه باهي هاي يصدو سد أب كوسمهنا يو تولك الاستعماله يو فرسموين كا يو noocyada la isticmaalo ayaan kaga hadli doonaa hadduu ilaahay maanta waxaan kaloo ka jawaabayaa dhalinyaro isoo weydiisay oo ku xiran channelkeena Somali Technology Solution qaybta YouTube-ka ayaan su'aalo aad qabteen ayaan halkan kaga jawaabayaa oo ay ka mid ahayd oo isoo weydiiseen sideen u samaystaa amba sideen u soo dejiyaa Kali sideen u helaa Kali halkan ka soo dejiyaa su'aalo caynkaas oo fara badan oo isoo weydiiseen ayaan iniga jawaabi doonaa iyo qaar kale oo xiiso badan ayaan ku eegi doonaa hadduu ilaado videogeena yar ee kooban. Videogan waxaa loogu talagalay dhalinyarta jecel inay ku shaqaystaan qaybta loo yaqaano ethical hacking amba penetration testing ama pen testing ayaan kaga hadli doonaa hadduu ilaado insha Allah. Marka qaybtaas ayaan eegi doonaa. marka daawada videoga oo dhamaysta si aanad u wada fahantid waxyaaluhu sida u socdaan aad iyo aad bad u mahadsantihiin aan u gudagalo. Su'aashan ayaan meesha soo dhigay sida ugu fudud ee loo barto hacking-ka way su'aashu. marka how to become a best ethical hacker af Somali luqa Soomaaliya ayaan ku sharaxayaa amba Somali language. Tools ayaa la isticmaalaa qof markuu hacking sameynayo waxa la isticmaalaa tools marka ugu horeysa. Toolkaasi waa inaad taqaanid qaabka uu shaqeeyo iyo waxyaalaha uu isticmaalo toolkaasi waa inaad taqaanid. labo waxa loo baahan yahay inaad baratid technique amba tactica loo isticmaalo hawshaas. labadaa shay markaad isla heshid ayaad noqon kartaa qof sameeya amba garanaya wuxuu sameynayo. Okay, haddaba toolskaasi su-aashu waxa weeye sideen set up u sameeya toolkaasi set up sida u sameysid waa very important. waxaad u baahan tahay laptop amba computer baad u baahan tahay. laptop amba computer internetna waa inuu ku xidhnaado. labadaa shay computer iyo internet ayaad u baahan tahay. waxaa kaloo u baahan tahay inaad soo dejisatid programka loo yaqaano Kali Linux. Kali Linux waa tool aad iyo aad u wanaagsan oo toolal fara badan ayaa ku shuma. macnaha waxa weeye waa umbrella amba meel weyn oo software loo isticmaalo ethical penetration testing amba vulnerability-ga amba meelaha uu ka liito programyadu ayaa lagu tijaabiyaa. marka toolkaas waad u baahan tahay. marka toolka ayaad soo dejisanaysaa marka ugu horeyso. waxaan tusayaa meesha laga soo dejisanayo website-ka laga soo dejisanayo ayaan tusayaa. linkigana waan idin soo gelin doonaa insha Allah haddii la yiraahdo. linkiga haddaad rabtiin inaad soo dejisatiin waa free. software-kaasi waa bilaa lacag, wax lacag oo ka rabtaa ma jirto. Okay, Kali Linux berigii hore magac kale lahaa waxa la oran jiray Backtrack. 2013kii wixii ka horeeyay ayaa la isticmaali jiray Backtrack ayaa loo yaqaanay. laakiin imika loo yaqaanaa Kali Linux. Kali Linux waa free open source. waxaa samaysa qol la dhahaa Debian. kaasi ayaan markaa idin tusaya haddaba qaabka loo isticmaalo. kaasi ayaan ka hadli doonaa. waxaan kaloo eegi doonaa
one of the best ethical hacking tools. Toolalka ugu wanaagsan qaar kamida ayaan eegi doonaa. Ilaa 5 tool baa la yidhaha wayna ka badan yihiin, marka qaar kamida ayaan eegi doonaa oon kaga hadli doonaa presentation iyagana. kuwaasi waxaa kamida Linux oon hore ugu soo hadalnay, Wireshark mid la yidhaha oo loo isticmaalo bucket inspection. Bucketka information ka socda ayuu qabtaa oo furfuraa. Nmap mid la yidhaha jira oo isagana loo isticmaalo network map oo scanning ahaan loo isticmaalo. aircrack.ng ayaa jira, aircrack-ng. kan wirelesska marka la rabo in la jebiyo ayaa la isticmaalo. wireless markaad rabtid in la jebisid toolkan ayaad isticmaalaysaa. waxaa kaloo jira mid kale la yidhaahdo intercap. kan waxaa loo isticmaalaa marka la rabo in la jebiyo amba in la noqdo middle man of attack, amba qof dhexe oo lasoo marayo. okay, middle man of attack waxaan kaga soo hadlay youtube-ka mar hore, videoga daawan doontaa. markaa waxaan isticmaalay toolkan ayaan isticmaalay, intercap. waxaa jira mid kaloo la yidhaahdo SQI map. SQL map wuxuu sameeyaa wuxuu map gareeyaa website-dada vulnerability-googa. okay, mid kale waxaa jira la yidhaahdo aniga qaado mid kale la yidhaahdo jira Metasploit iyadna waxa weeye waa software open source oo loo isticmaalo vulnerability-ga au leeyahay system like Windows oo kale iyo qaar kale ay leeyihiin ayaa loo isticmaalaa, oo waa program isna vulnerability testing ah. okay, vulnerability assessment penetration tests ayaa loo isticmaalaa dhammaan Linux-kan iyo software-adan ka soo hadal. marka su-aashu waxa weeye why aan u isticmaalaya. waxa weeye let's say for example waxa la yidhi company ayaa rabaa inuu security-giisa hubiyo, amba business-kaaga ayaad rabtaa inuu security-giisa hubisid, inuu haddii dibadda weerar kaga yimaado inaan waxba lagu samayn karin. marka engineerka amba qofka pen test ama penetration test la yidhaha dadka ugu lacagta badan ayuu ka mid yahay. waxyaalaha la barto waxyaalaha ugu qaalisan ayuu ka mid yahay. laakiin intaanad kuwaa baran waxaad u baahan tahay inaad baratid computer science amba iyo computer network. marka A+ waa inaad taqaanid, CCNA iyo wixii u dhigmeen network waa inaad taqaanid, network waa inaad si fiican u taqaanid, programming waa inaad wax ka taqaanid sida Python oo kale, inaad wax ka taqaanid ayaa lagaga baahan yahay. network waad u baahan tahay, programming waad u baahan tahay inaad wax ka taqaanid. okay, at least si aad barnaamijkan hore ugu socoto. Linux waa inaad wax ka taqaanid. marka qofka noqonaya pen tester ama penetration tester engineer waa qof aad iyo aad wax badan og. marka waana programyada ugu lacagta badan ee lagu shaqeeyo. xitaa waxaad u shaqeyn kartaa cyber security government like amba company ee ku shaqaaleysiin kara. marka waa branch aad iyo aad u xiiso badan. waqtigan aan ku jirnana waa waxyaalaha ugu wanaagsan in la barto. marka aan ku sii socono qaybtiisa kale. hadda waxaan tusayaa waxyaalahan ka soo hadalnay halkeebaa laga helayaa. waa su-aal la isweydiiyo moogta. okay, haddii aan ka jawaabo su-aashii ugu horreysay how to set up, sideed u dhisaysaa arrintaas, waxaad u baahan tahay computerkaasi. markaasi waxa wanaagsan inta badan dadku waxay dhahdaan waa inaad u isticmaashid computer aad ugu talagalashay penetration testing. marka arday ayaa wuxuu soo weydiiyey macallin waxaan u baahanahay
inaan VMware isticmaalo. Marka VMware workstation halkeen kasoo download garaysta. Meesha had iyo jeer ugu nadiifsan ee laga soo download garaysan karaa waxa weeye waa VMware. Sa halka uga jeedin VMware.com halkaas ayaad kasoo download garaysanaysaa. VMware.com markaad ku qortid waxaad tegaysaa sidan ayaa kuu soo baxaysa. Marka waxaad dooranaysaa downloading meesha ay ku qoran tahay saad uga jeedin. Okay, downloading markaad tagtid hoos waxa ku soo baxaysa qaybtan amba adigoo ku dhufan qaybtan ku soo baxaysa. waxaad doonaysaa free ga dooro because ma gadan kartid. ardayda waxaan kula talinayaa kuwa bilaa lacagta iska isticmaala. waa free, lacag lagama rabo. just waxaad u baahan tahay inaad computer haysatid, internet aad ku soo download garaysid. waxaad ku dhufanaysaa markaa meeshan ay ku qoran tahay free markaad dul qabatid waxa ku soo baxaysa waxyaalo badan ayaa free halkan. hypervisor kuna u baahdid kaas ayaa doonaysaa workstation player kaas aad dooranaysaa. Okay, haddii ku trial oo lacag aad rabtidna wuxuu leeyahay mid la yiraahdo workstation pro. Okay, laakiin waxa ku anfacaya free-ga markaad dooratid midka la yiraahdo workstation player. waa free, waa bilaa lacag, waad soo download garaysanaysaa. haddii aan ku dhufto for example waxa kaliya oo ku weydiinayaa saad u jeedin inaad halkan ku dhufatid oo tiraahdo download now. Okay, kadibna waa workstation 16. maanta aan duubayo workstation 16.0 for Windows. wuu leeyahay, Linux wuu jiraa, operating system mid ku shaqeynaya, waxa kaloo jira mid ku shaqeynaya maxaan ku dhahdaa Mac. Okay, halkan Linux wuu ku shaqeynaya. ma huba Mac laakiin Linux na wuu ku shaqeynaya, Windows na wuu ku shaqeynaya. kaasi waa sida loo soo download frame VMware. ardaygii weydiiyay amba ardaydii soo weydiisay VMware sida loo soo download gareeyo waa sidaas. computerkaaga ku shubasa, markaad ku shubtid kaali baad ku shubi doontaa marka labaadna. Okay, taas markaa wax noqonaysa cashar kale oo intu soo practical sa loo sameeyay. waxa kaloo free oo bilaa lacag ah oo virtual ku sameynaya mid la yiraahdo Oracle VM amba virtualbox.org oo Oracle oo sameeyo. kana waa free isagana. kan markaa soo download garaysid macnaha waxa weeye computer la sii dhex dhigay haddaad rabto inaad ku dhex practice garaysid. Okay, ayuu ku sameynaya. Hyper-V baa la yiraahdaa programyadan. haddaad markaa tagtid download baad ku dhufanaysaa. Windows haddaad haysatid ka Windows-ga soo download garaysaa. Mac OS X haddaad haysatid Mac OS, Linux kii aad rabtid ayaa soo download garaysanaysaa. Okay, intaa markaad samaysay computerka ku shubtid for example ayaa waxa dhacaya haddii aan idin tuso example xaggan igu jira aniga idin tuso marka la soo download gareeyo inuu leeyahay. haddii aan idin tuso example kan iminka for example halkan kaali ayaana igu jira, halkana Windows ay igu jirto. marka VMware markaa soo download sidan oo kale ayuu ku soo inkastoo Mac yahay oo ka yar duwan yahay kiina sidan oo kale. marka haddaad rabtid computerka markaa ayaad start garanaysaa kaasaad ku testanaysaa. waxa kaloo free oo ku sameynaya sida VirtualBox. Okay, haddii aanad fahansanayn waxaas oo dhan waxaad tegi kartaa YouTube-kayga Comatia A+ training-ka ayaan aad iyo aad ugu faahfaahiyay VirtualBox iyo Hyper-V iyo nooca waxyaalaha ay qabtaan iyo nooca yihiin. kaasina sii fiiriyaa doonaa insha Allah. Okay, inta markaan kasii gudubno waxaan u gelaynaa Kali Linux waxa la sameeyay 2013kii. backtrack baa la oran jiray beriga hore. Kali waa presentation software oo free bilaa lacaga. waa kali.org
halkaa baad ku dhunsanaysaa downloading ku qoran iyaad u qabanaysaa kadibna downloading Kali Linux Kali Linux Net Hunter baa kusoo baxaya noocyo badan ayuu leeyahay marka ka koobaad ayaa dooranaysaa markaad ka koobaad dooratid noocyadan ayaa kusoo baxayaan isagoo installer oo computerkaaga aad ku shubasid haddaad rabtid haddaad torrent isticmaalaysid waa 2020 aad iyo aad waa noocii ugu dambeeyay halkan ayaad kasoo download haddaad rabtid 64 bit okay 32 bitna uu leeyahay Kalina waa Kali.rg baa laga soo download garaystaa kuwaasi waa toolalkii aad u baahnayd haddii aad rabtid inaad search garayso what's the best tool search waad ku samayn kartaa what's the best tool okay best tools markaa way badan yihiin noocyadan ayaad baran doontaa mid baad eegi doontaa marka Kali waa kaas linkiga waan idin soo gelin doonaa dulaa insha Allah inaga waxaan naga rabaa wixii su'aala iyo wixii information aad qabtiin comment-ka igu soo qora feedback soo siiya maxaan ku raraa videogana adula share gareeya la wadaaga waxa kaloo idin sheegaya ogeysiis waxyaalaha attestaynaysid adiga oo kaliya ha ku koobnaato ha ku tijaabinin network aanad u haysan waxa la yiraahdaa permission waayo sababtoo ah wadanadan westernka aan joogno qofka cid kale ku tijaabiya waxa jira xarig iyo waxa isku jira waxa la yiraahdaa ganaax ayaa la isku daraa waa arrin aad iyo aad u dhib badan dhalinyarta wadankii joogtana waxaan leeyahay inaguna isku tijaabinan laakiin aqoon ahaan u barta dantaada iyo dadkiina iyo dalkiinana u barta waa qaybaha cyber security-ga lagu shaqeeya ayuu ka mid yahay ka faa'iidaysta waxa kaloo jira limitation ayaa jira YouTube-ka lama soo gelin karo iyagoo practical test caadiya la sameynayo so lama ogolo publicly marka ciddii private learning rabta inay si gaara u barato website-kayga igala soo xidhiso somts.com igala soo xidhiidha website-kayga somts.com kadibna Kali Linux haddaad rabtid amba cyber security inaad baratid si gaara oo private halkaas ayaan igu diyaarnay qiimo aad iyo aad inii raali gelinaya aad iyo aad baad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu